Soomaaliya haddiisan la helin prime minister cid shacabka intay hasuuqda haddana lala xisaabtamaynin maalintaas inta laga gaaraya hasuuqa saar u soconaya waa laazim beesha caalamka inay Soomaaliya ku tiragasho dad baa jira heeg waxay jiraan maxkamadaha heeg Afrika ay kamid yihiin maalin walbana dad baa meesha lagu maxkameeyo maxay ku dhacday Soomaaliya in hal noolin qof ummadda intuu hasuuqo haddana shacabka iska dhex soconaya si caadi ah dowladda federaalka inay arrintaas hogaamiso ay codsato. There is no way we can allow impunity to continue, Mr. Prime Minister. This is impunity day in, day out. maanta waa gaalkacyo berri waa Kismaayo maalin kale waa Beledweyne shacabka meeqaasanoo la laaynaya yaana mas'uuliyadda qofka la laaya qaadan doona inay qofka la ciqaabo ma socon karta arrintaas waana ka wada hadalnay annagana runtii hadda urgoboleedka igaad anigu waxaan rabaa anoo ergeyga inaan runtii arrintaas ku dhiirigeliyo maalintii qof Soomaali maxkamad caalami la keena xasuuqan uu joogsan aan hubna laakiin maalintii caadi iska noqoto in shacab la barakiciyo magaaladan magaalo booming bay ahayd magaalo dhismaysay ahayd dad baa maanta ku nool xaafadooda ka qaxay duur ku nool waxay ku sugan yihiin in garniin kuwa dhintay waaba la gartay Allah u naxariisto hadda kuwa dhibaataysan u maqan markaas qolka soo gashaan wajiin markii la fiiriyo muruga ka muuqata waad wada hanaaqsantihiin yaad u hanaaqsantihiin yaad ka hanaaqsantihiin annaga waxaan u baahanahay Soomaaliyeed your excellencies you must be serious haddii leaders ina noqon karin shacabka loo baneeyo dad madaxdan hogaamin kara Ilaahay ha u sahlo haddii kale ahaan leaders noqda shacabka isku dirina janno lagu magalay wallahi billahi tallahi naar baad ku mudanaysa annaga intaas ay tahay midda saddexaad prime minister ugu dambeeyay oo leedahay sheek waa ciidan qaran in la helo Soomaaliya ma dhici karto inay states dhismaan states ka dhismaayeen state walba oo ciidan u yeeshay wadama ma tawan wadan ba Soomaaliya soo hal wadan ulmaha oo ciidan qaran oo astaanta qaranka inuu yeesho kaliya la rabo sidee ku dhici kartaa inay wixii aan ku aragnay videos ka loo soo duubay arrinta ka dhacday gaalkacyo waxaad moodaa inay Syria ka dhacayso tanks iyo anti aircraft missiles say shacabka looga beeganaya soo waajibaadkii dowladda qaran ma taas waajibaadkii dowladda qaran aaway ciidan Soomaali hadda waxaad ka hadlaysaan 2016 maxaad ku gaaraysaan 2016 shacab ma haysin shacab hoobiye la dhacaysaan ma 2016 ku gaaraysaan waxay ila tahay inaa fikradaas la bedelo walaalihiin dowlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiigooda ku qumay Soomaaliya they are dying in this country hal maalin cid isweydiisa male dadka ajnabiga oo dhiigooda ku qumay Soomaaliya why haddii aan haysan hubka aan haysan ciidanka aan haysan waxa ummadda u soo gurmata ma idinka samaysaan maxaad ugu baahanayeen in shisheeye idinku imaado maxaad ugu baahateen shisheeye inuu wadankan imaado haddii ciidanka la heli karo prime minister why do you require foreign forces if you have sufficient forces in the country well equipped why maskaxda ma shaqaynayso waxaad ku maqadin kulli waa dhunsantihiin Ilaahay ka cabsada wadankii umadiin u naxariista taasa aniga liiray far midda ugu dambaysa waxaan rabnaa wada hadalka socda hadda Soomaaliya guud ahaan 2016 arrinta ka dhacday gaalkacyo idinka moodin inay gaalkacyo kali ku egtahay Soomaaliya idil guuxeedu ka yeer meel walba oo Soomaaliya beesha caalamkana waxay noqotay arrin lala yaabo oo it jolted the international community waxa idinka waxaad moodaysiin dad deegaankan gaalkacyo kali isku dagaal inay tahay dhibaato weyn aad u keenteen shacabkiina waxaa muuqata dhibaato weyn inaad Soomaalida u keenaysaan waxaa muuqata dhibaato weyn inaad haddana beesha caalamka u keenaysaan ha u malaynina inay tahay wax deegaankan kali ku eg kuma eka deegaankan ha u malaynina wax gaalkacyo kali inay tahay walaalayaal reer dadka ku nool gaalkacyo magaaladan gaalkacyo ha isku abtirinina walaalayaal waxay yeeshaan walaaltinimadiina ka shaqeeya aanan isku kindirin nabadda nin walba gaalkacyo ku nool ayay dan u tahay markii laga soo gudbo guud ahaan qaranka haddayba dan ku tahay amaad ka shaqaysid adigu wax dan ku ah ma in lagu la saxay u baahan tahay ma inaan soo gurmana u baahan tahay generaalka militariga waa ka Soomaaliya u weyn ciidanka kulli prime minister hadii lahaa aniga
odayga ha lagu wareejiyo giddigood say u wada dhan yihiin wixii Soomaaliya asaga ha lagu wareejiyo asagana mas-uuliyaddiisa ha qaata inay tahay ciidan qaran inay noqdaan haddii saa inay yeelin cabdikariinna ma aha cabdiwelina ma aha hataa prime minister ma aha hataa kii ka dambeeyo iyaga imaado asana ilaa wuxuu ku imaado unbuu lugta la gelaya haddii waxba laga bedelin ani waxaan u baahanahay waxaan walaalayaal Soomaalida halkan iskugu imaatay midnimadiin ayaa muhiim ah arrinta ka dhacda gaalkacyo waa ceeb ma wax lagu farxa waxa iskugu imaanay wax maalin farxadeed maxaa farxadeed 50 qof aastan maxaa ku aastan oo sabab it's a shame markaas national titles ay wada wadataan it's not proper aniga waxay ila tahay arrintaas ha laga fiirsado waana implementationka prime minister implementationka arrintan la saxiixay waa maanta in la bilaabo maanta ciidamada kala qaada shacabka isdhex maraan gaalkacyo ay gaalkacyo noqoto salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad